عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ودنا قدوم يا لاف كيف كنترتا ما دام دي ما كنتوقتو الله سبحانه أغير كيدي حالة دي اللي يريد دجال بصالة إن وحول من نقصين كتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام عليكم تعوض يا شباب. marka hore ilaahay kala qaboojiyo horta xaaladdu waa adagtay iyadoo arrimuhu iska caadi yihiin oo dhulbaante iyo garaadkoodii guud yidhaaheen annagu wax ciidan oo Somaliland ma aqbalayno oo dabagale la diiday oo nuuxtaani la diiday oo dhammaan odayaashii oo dhan farmadan ay saraakiishii kala soo noqdeen ayuu haddana dab ku sii qabtayna Kenya iyo ninkii ina sulubo ordiya meeshii tageen dabkii bay gaas iyo kibriid bay gaas bay ku sii dul shubeen dabkii baxay bay gaas ku dul shubeen xaaladdu way ka dalkayaashiisii ka awiyadii wixii oo dhan way saartay waxaan ku gacanta ina fadlaa dee haddii arrinta dawladdu daacad ka tahay dee gudoomiyaha baarlamaanku waa kii cadeeyey mudane khaliifiin waa kii cadeeyey yidhi dadkan ha looga soo baxo waddanka dadkuna ma aha loo ciilay marka ama hadda soo noqonaya dagaalkuna sidaa uu ku bilaabmay hortay wax dagaal lagu farxa maaha oo yaqaaxisan wax lagu farxa maaha laakiin runba sheegay oo ku saxsan dhulbahante inay maanta iska saaraan loo ku mujaahidaan wallahi waa janno ku dhinta waayo war waxa laga aynu ka dagaalanay maanta dhulbahanta ma ogolaanayo qof shakhsi oo dhulbaxay qof shakhsi ahina ma ogolaanayo wataad shalay ka dagaalamaysin idhagayso hayga dhexgal intaad shalay ka dagaalamaysin maanta inay dad walaalaha iyo ehel iyo abtiyo xidig xigaal baliyiin ku dhacdo ma fiicna kaluu sameeyaa ku sheegay boqor buurmadu waa kii ka hadlay liibaan waa kii ka hadlay sacad musaafiriin hadda ma garanaysaa ma ila socotaa haa si wanaagsan cabdillaahi kaawiyada hadda ma aragta laba nin oo masaakiina oo aan waxba dilin si ay beelaha afka iskugu geliyaan haddana suldaan boqorku waa kii ka hadlay boqor buurmadow liiba waa kii ka hadlay kaysa cayin cawileen jaamac caraale faarax murtiile waalihi iyo ninka isna la dhaho bagaase xuseen cali xuseen jaamac oo isna habar jeclaa labadan idhagayso baabo inta waa ku darsanaya walaal sooyin boqor buurmadowna uu ka hadlay labadan ninba dabada waxay ku hayaan nin kale inaan habar jecli ku dilay xagaayo boorama oo dalmar la dhaho dabada ay labadan nin ku hayaan oo maadaama oo ninkaas uu kaliya caseer xidhayay oo habar jecla hore u kacday inta la sii dilo laga reebay ayaa haddaba sheekadan ragana loo soo dhexgeliyay habar jecliye la doonayaana dhulbaante la isku dhufto taana waxaan uga mahadnaqayaa garaadada dhulbaante iyo boqor buurmadow iyo dhammaan wixii wax garadee shaxdan fahmay dadkana waxay u haysaan waa niyo dadka waxay moodayaan xasiidii bay dadku moodayaan in imaka xaaladda taagan aan ku soo noqdo ee laascaanood xaaladdu SOS bay maraysaa ina falaalug baa soo galay waddankana dhulbaanta haysta ciidan qaranka laftoodii raggaa markii eedaana lahayn dhakada laga saaray ciidankii laftiisii baa isagii isku dhex buuxayaba xaaladiinu caawa kala jajabay maadaama imika adigu aad ku sugan tahay in qululugud iyo waxay la mid yahay aad joogto laascaanood ku dhow anuu magacaaga sheegay xaaladiinu imika sideebay tahay ciidamahan inaad codkana la duubtaan ka baqaya xaaladdu waa xunta xaaladdu waa xunta asbay maraysaa xaaladdu waxaan ku inamadii ragga laayayna uu la carro wuxuu geeyey maxay gooja aduu geeyey wani anaga eegi baa isaysanan iyo iska daa dadka shicibka iska daayay ciidamadii baa dhexdiisii haystaniyo imakana waa kan dab kala ku sii qabtay marka anagu soconaa dhici kartaba sidan hadday ku sii socoto oo ilaahay ummadiisu ay usoo gurman weydaa ciidanka laftiisa iscuni doono wallaahi bilaahi tallaahi waxa ciidanka laftiisa boqor buurmadow nin walba hadalkiisu uu dhegaysanayay internetkana laga jaro wixiiba dad shiciba maasha allah dhulbaanta waa mahadsanyihin warni waxna aalad baa wax qorsoon ma jirto su-aal baan ku weydiinaya horta nabadda ugu wanaagsan laakiin xukuumaddii waa tan hadba dabshiisaso hadda imika laascaanood dad fara badan baa ka qaxay baa layidhi miyaad igu soo warcelin doontaa mise wax waladka yeesha hadda imika intii
waxaan ku laascan bad xaaladeedu way xuntay baan ku meel alisay maraysa taga dab ku sii qabtay wuxuu ka heeraagu leey war dad iyo aqligu shaqaynayo ina suru iyo ina kaaniye maxay soo kordhinayaan waxa la socda maxay soo kordhinayaan garaadadii waranaga idhagayso annaga ciidan ahaan annaga iyagu kula hadlayna hayna magacayb neelkan joogo wani annaga iyagiibaa yaaban meeshan annaga iyagiibaa la yaaban xaaladu meel xun bay maraysaa annaga iyagiibaa imaka wax annaga iyagii askarta ahayn raggaa dhan ina maamulayaan annaga la yaaban war meesha caqli ma jiro marka waanu iskaga tegaynaa dee dhulbaan cid lama dagaalamayso because annaga iyagii ay dhigayso rag inaga mid ahaan waxba geysan ragga habar awale wax geystayna waa lala cararaya nuux taani baa ag fadhiyan rag kaloo masaakiin iyo filmo kaloo la isku beegiyo danayso war waxaan ma soconayso caqliga saliimku meesha ashtay haddii kalena de waa annaguna waanu kala dhaqaaqan dhulbaanta walayna imaka inta socotay ku jirtana waa in habar awal waa ama garxajka ama habar kale ciidan oo galay waa la diiday waa laga dhacay in habar awal meesha gashay in habar awal waana ku salaamaya codkayga la duubay ku salaamay aad iyo aad baan ku salaamaya